بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن وحن كل ما أنت أنتوننا إن جواب كسينو إن حسين أحمد عيديد إن عمر والبعد مودد إن تفيق ولا سيستوى عيبين وعيبين أيه تد أبال كلها مركي هراء أهيد بعدت كي يدعنا وكسر شهدا أحمد إن حسين diidan haddana haye uun oo ilaa intuu isagu iscasilaya aan xitaa wax ceeba iyo wax dhibaato aan u geysan iyo una haystay inuu mar walba agtooda uu joogayo xitaa dadkoo dhan ay diidaan xuseen waxa uu mar walba inuu focuska u saaraa oo qoyska madaxweynaha taasi anagu ceeb ayaan ugu tahay xaalna waan ka seenaa in marwada madaxweynaha iyo madaxweynaha iyo qoyskiisaba xaal ayaan ka bixinaynaa ku saabsan dhalacaynta mar walba oo target gareynayo mar walba uu leeyahay marwadii baa saameysay iyo wabnis clubkii waa la iibsaday wabnis clubka sida imka waraaqii la intuseeba ku cad in cidda iibisay iyo cidda xukunka haysay iyo cidda baawarka lahayd waa la wada garanayaa Cabdirasaaq Khaliif ayaa ahaa qofkii iibiyay ciddu ka iibiyay inuu Saciid ayuu ahaa in warqad ay ku caday lacagta maxaaday uu ku iibiyay ku caday waanu og yahay in hadii uu leeyahay Xuseen in marwadu ma geedo inay wax iibsataba oo si shakhsi ah iibsatana tay isaga sheegi doona marka waxyaalaha ma mucaaradnimadu in ciduna dul taagnaado oo mar walba cid gaar ah laga hadlo anaga wana damqaysa mucaaradnimadu waxa weeyaan waa wax toosin waa wixii khaldan ee xukuumaddu ay khalado inuu toosiyo weeyaan inuu dhibaato ka dhiga maaha toosinta waa loo ogolay qofka mucaaradka ah laakiin looma ogola in cirdiga iyo sharafta uu qof leeyahay inuu meel kaga dhaco waa tan oo kale marka qof wax iibsaday si shakhsi ah iibsaday marka la yiraahdo musuqmaasuq sharafta iyo karaamadii qofkan lahaa ay meel kaga dhacaysaa ciidan uu sharaftiisa u baabiinayana waa hogaankii ummadeena weeyaan waa cidii aynu ku daafashanaa waa cidii saddex xisbiba madaxweynaha u ahayd weeyaan marka hadii uu leeyahay wadani madaxweyne nooma aha oo waxaan dooran ku sameeynaa maxay ahayd taasi waa sharaf u taalo weeyaan sharaf dhac u taalo weeyaan xisbiga laakiin maanta madaxweynaha ummadda oo saddex xisbi madaxweyne u ah in maanta wax cad oo la cadeynayo oo aad waraaqaha baad ka arkaysaan in Cabdirasaaq Khaliif maanta wadani jooga in uu ahaa kii iibiyay cid uu ka iibiyana inuu Saciid ahayd oo ay cadahay Xuseen markaa wuxuu taagayahay ama uu leeyahay in maxayna uu Saciid uga iibsatay uu taagay markaas maana qof muwaadinada ah marwadu qof maxay ahaday in wax iibsan karta miyaana ahayn oo cid ay doonto wax ka iibsan karta miyaana ahayn mise ma geedid uu leeyahay markaas Xuseen in waxyaalaha taariikh madow ayaa ku taala deegaanka ka soo jeedid wadana wax ku kordhin maysid wada ogtay 150 kilomitir sibirka bilgubada loo raray inaad tiri ka soo celiya waa wax ku yaala weeyaan xataa ku farleetar deegaanku wax ku hay'adaha kale wax ka raasada ayaa xitaa u diiday maanta ceeb ay kugu tahay dawladii aad 7 sanadood difaacaysay ayaa wixii aad ku difaacaysay maanta aad ku ceebaynaysaa sidee marka hore saxda u ahayd ayuun bayimkana sax u tahay wixii khaldanaana khalad bay wixii saxsanaana sax bay ahayd laakiin maanta laga yeeli maayo wixii marka hore aan lahaa waa sax ayaa hadana maanta marka aan tagay waan khaldamay waxaan ku waarinayaa Xuseen in bal wixii uu difaaci jiray hadoo hadana maanta yiraahdo maxay waa khalad oo waa sax waa khalad baa dhacay taasi ummadda ka iibin karmaysid in ummadda waa inaad ka iibisa wax aad taabatay oo aad arkaysid oo wixii ka dambeeyay yani markaan meel joogana waa saxanahay markaan ka tagana waa khalad oo kullu meeshan joogun baa saxa marka laakiin ka tago khalad ayaan maxay ahaday u arkaa wixii hore dhan taasi ummaddu ma ummad nooci hore ma aha waa ummad imka soo jeeda waa ummad halka ay levelkaad ka taagnayd haday arintii xaq soo tahay ya arintii deegaamada gobolka Hawd haday tahay in ummaddu way ka wada dheregsan tahay waana og tahay in sababta dawladda iyo xukuumadda kala fogeysana koobaad ka ahayd in adiga markii aad maxay ahaday aad ka tagtayna maanta alxamdulillah xukuumadda shacabkeedii way isku soo dhawaadeen 90% dawladoodu way ogol yihiin waana isku mid waana og yihiin
waxaanaad ku ceebanaysaa in ay khalad tahay mucaaradnimada waa inaad barataa haddii aad markii hore muxaafid ahayd waa inaad mucaaradnimadana aad barataa oo mucaaradnimadu ay kuu noqotaa mid khaladaadka la gelayo hadday jirto aad toosinaysid laakiin aanay noqon mid qof sharaftiisa aad meel kaga dhacaysid waxaan ku soo gabagabayn lahaa in aan kugu waana ahaan aan kugu soo jeedin lahaa in aad beersana taaga aad joojisid oo aad mar walba waayo haddaad meel uun ka hadashid waa mar walba waxaad ka hadashaa mar wadda la samaynaad ka hadlaysay wallaahi wadda khaldan la samay mar walba niskilaabkii yani qoys madaxweynuun haddaad ka hadashid mar walba iyagoo aan xilkii kaa qaadin iyagoo 7 sano ku ilaalinayay iyagoo abaal kugu lahaa in haddana aad maanta aad tiraadid maxaaday iyaguun baan ka sheekeynaya warkooga dee aday ceeb kugu tahay waana la ogyahay in dadka xukuumadda ee madaxweynuhu ixtiraamka kuu hayay oo aanu xitaa xilkii kaa qaadin ilaa ayadoo aad iskaga kaa qaadin intaasay ahayd inaad ku ilaalisid intaasay ahayd inaad eegtid laakiin maaha inaad been abuur cad aad kula timaadid dhulkii baa la iibsaday iyo waa la musuqmaasuqay markii la iibinayay wamaniskilaabka wasiir baad ahayd dee inaad ka hadashid bay ahayd haddii ay khalad tahay maaha inaad tiraadin markaa maan hadli karaynoo waxaa jira xitaa khaladaadka dowladdu ay gasho dee golaha wasiirada lagaga hadla wixii khaldan haddii markaad wasiirka ahayd ay sax ahayd dee maanta lagaa yeeli maayo waa khalad lagaa yeeli maayo maanta waayo xilliga la iibiyey maaha iminka ma aha waa xilligaa horeed wasiirka ahayd saaxiibka ahaa wasiirka howlaha guud uu ahaa maanta wadani ku wada jirtaan haddii xitaa khalad loo iibiyana cidda khaladka lahayd waa ciddaa iibisay oo intuba maanta ka mid ah wadani ka mid ah markaasi